kulan ciyaareed lagu sagootinayay macallinkii hore ee degmada Dherkeley Maxamed Deeq Badow ayaa ka dhacay Madiina Stadium. Madasha kulanka sagootinta waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha isboortiga degmada Dherkeley, halyeeyadii hore ee kubadda cagta ee degmada Dherkeley, ciyaaryahanada hadda matala degmada Dherkeley iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxaa madasha abaalmarin lagu gudoonsiiyay macallimu Maxamed Deeq Badow ay ugu talagaleen qaybaha kala duwan ee ciyaaryahanada iskugu jira kuwii hore iyo kuwa iminka matala degmada Dherkeley. Sidoo kalena macallimu Maxamed Deeq Badow ayaa si dareen ay ku dheehan tahay ugu falceliyay munaasabada ay u sameeyeen bahda isboortiga ee degmada Dherkeley. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. waxaan idin leeyahay khiyaarta ka soo qayb gashay xafladan qiimaha qaayaha mudan ee igu tala galeen degmada Dherkeley maxaa la yiraahdaa ehelkeeda isboortiga dadkii hore iyo dadkii dhexe iyo dadkii dambe baadii aalaayeen waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin marka labaad waxaan leeyahay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay maanta munaasabadan aad u qiimaha badan leh oo la soo koobi karin ee dadka walaalaha Dherkeley ay ii muujiyeen min bidaaya bilaa nihaaya dhammaan intay ka kooban tahay ka kooban degan aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay maxaa la yiraahdaa isgarab istaagga ay garab istaageen maxaa la yiraahdaa maanta qiimahan maanta aan taaganahay darajadan agtooda inaan ka leeyahay maxaa la yiraahdaa ii sheegeen aad ay ugu mahadsan yihiin mideeda kale hadal badan laakiin insha Allah tacaala waa soo koobi doona hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay degmada Dherkeley maanta qiimaha aan taaganahay Ilaahay ka sii ayaga ii yeelay anigoo degmadan joogo oo dad ehel iga ah macallimimadan iga fiican ciyaaryahan iga fiican ay joogan ayaan aniga nasiib u yeelay degmadan inaan macallin ka noqdo taasna waxaan kaga mahad celinaa saaxiibkay Cusmaan Carfa ee gudoomiyihii hore degmada Dherkeley waxaan kaloo aad ugu mahad celinaa meeshii aan ka soo bilaabay kubadda cagta oo bugle ahayd iyo xaafadii aan ka soo bilaabay naadiga kubadda cagta ee Zeena oo i garab taagan maxaa la yiraahdaa ii sheeg bilaaw ilaa dhamaad waxaan kaloo aad ugu mahad celinaa naadigeygii labaad oo koowaad aan waxba ii dhaamin oo muddo 12 sano aan ka mid ahay walow naadigeyga markay istaagtay ee burburtay aan istaagay inaan ka mid noqdo fursad ee naadiga kubadda cagta ee Suuqyare ciyaartoy badan oo garab soo siiyay inay ilaa heer ay gaaraan taasna naadiga Suuqyare ugu mahad celinaa mideeda kale waxaan u celinaa ciyaartoydii kubadda cagta degmada Dherkeley oo markaan macallinka noqday oo nasiibka u yeeshay koobkii qiimaha badnaay ee sida taariikhda leh aan la ilaabi doonin aan u maleynayo waliba MBT waa lagu qaaday laakiin South clean sheet hatta adduunka caalamka ma dhicin oo maleyna naadiga ugu horeeyay oo sameeynaanahay caalamka ku nool waxa kubadda cagta ciyaar waxaan kaloo ugu mahad celinaa shucuubta Dherkeley ee jaceelka qiimaha badan ii muujisay aan la soo koobi karin oo meel kasta oo aan tago fadhiga istaagayo oo ah inaan macallinka degmada ahay oo macallimu anoo magacayga Deeq la dhijay laakiin markii dambe macallimu u bedelena aad ugu mahad koobkii aan qaadnay ciyaartoydii garab istaagtay oo aan la soo koobi karin magacooda aan iyo laba aan ka dhigi karin oo ku xusi karin intay ka koobnaayeen 30 ciyaaryahan aad ugu mahad celinaa oo ah sharaftay maanta karaamadan aan degmada ku dhaxleeyay inay qayb ka ahaayeen waxaan kaloo mahad celinaa odayaasha isboortiga oo i garab taagnay oo dhiirigelin iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg fikrad iyo xigmad iyo ciyaartoy badan oo inta aan ka soo koobi karin oo haddaan magacooda hal iyo laba aan tilmaamo markaan degmadooda oo ka mid yahay shirwac ah macallin qiimo badan oo i garab taagnay waxaan kaloo aad ugu mahad celinaa ma tago ah oo fikrad iga siin jiray waxaan kaloo aad u ilaabo oo ugu mahad celinaa labadeeda saaxiib aan dhihi karo aan isku madnaa bal waa iga fikir dheeraayeen aan qabo JJ ninka la yiraahdo Nuur Ikar Nuur waliba halyeeyay degmadan waxaan dhihi karaa aniga macallin nasiib yeeshay koobka inaan qaadaan dhihi karaa laakiin wax qabadkooda inta kuma soo koobi karo degmadan Dherkeley waxaan kula dardaarmaa naadiga nimanka la yiraahdo Nuur Ikar iyo ninka JJ la yiraahdo waa degmadan maqaam sare ka taagan wax badan oo soo qabto waxaan jeclaa wiligood aan ilaabin aan dhihi doonaa waan ka dardaarmi doonaa labadaas waxaan maxaa la yiraahdaa aan aad u casuumaa ninka xafladan qiimaha badan ii soo abaabulay ee maxaa la yiraahdaa qaybtii ugu weyn ka qaatay mar labaadna aan inta ka sheegi doono Cusmaan Carfaaye oo ah marna macallinkeyga marna saaxiibkeyga ah waxaan kaloo gudoomiyaha isboortiga degmada Dherkeley kan
hilmaan hadal kuma jiro waxaan kala xumeynaa dadka ka soo qayb galay maxaa la yiraahdaa xafladiina aad u qiimaha badan leh aan la soo koobi karin haddii ahaayeen labadeeda naadi gacanteedii labadeeda garbood ah suuq yaraha iyo FC Zano waxaa ku jirtaa khaasatan Zano qofka uga soo baxay Yurub inuu xafladan ka soo qayb galo si fiican Cabdiraxmaan Dheere waxaan ilaabi doonaa Cabdiraxmaan Xasan Dheere oo ah saaxiibkayga qaaliga ah wili Mareykanka nooga imaaday aniga darteeyda ugu yimid khaasatan asoo hadda bilka hor maqnaa ayuu dib wadanka ugu soo laabtay aadaan ugu mahad celinaa saaxiibkayga asagana waxaan kaloo aad ugu mahad celinaa saxaafadaha Astaan iyo Raja Sports iyo Astaan Sports oo mahad celinaa waxaan kaloo dadka degmada Sports ka soo qayb galay munaasabadeeda waa idin ilaabi doonaa dharkeen leedana waa jacayl qalbigay wiligay ku taagnaa doonaa haduu Ilaahay insha Allah